Gawaari gaashaaman oo cajiib ah, kuwaas oo loo isticmaalo hawlo kala duwan, sida kuwa gargaarka degdega ama kuwa dab-demiska, ama xitaa kuwa loo isticmaalo ku qaadida gawaarida kale. Waxaan idin haynaa 10 ka mid ah gawaarida gaashaaman ee ugu cajiibsan caalamka. Sandcat Stormer, shirkadda Blazon, waa gaari gargaarka degdega ah oo loo sameeyay aadidda iyo ka soo laabashada goobaha ay adag tahay in la galo. Dhererka gaarigan wuxuu gaaraa 5.5 mitir, halka culeyskiisa uu yahay 9 tan. Wuxuuna qaadi karaa gaarigan Sandcat 7 rakaab ah, ayadoona ay u sii dheer tahay sariir lagu qaadi karo qofka dhaawaca. Waana mid ay u suuragal tahay inuu isaga kala gudbo si fudud waddooyin kale sida bacaadka, dhoobada, ama xitaa dhulalka barafka leh. Waxa uuna ka mid yahay gawaarida gaashaaman ee heerka 3, wuxuuna wataa matoor siinaya awood gaaraysa 306 faras, ayadoona uu gaara xawaarihiisa ugu sareeya 120 kilomitir saacaddii. CZS 15 Triton, shirkadda Excalibur Army, waa gaari dab-demis ah oo lagu sameeyay dalka Czech, waxaana qaabka naqshadda gaarka ah ee gaarigan uu ka caawinayaa inuu isaga kala gudbo dhulalka ay adag tahay socoshadeed, asigoona ah mid loo isticmaalo in la geeyo si degdeg ah goobaha aan aaminka ahayn, kuwaas oo ay ka dhasheen dab, sida goobaha warshadaha kiimikada ah. Dhererka gaarigan wuxuu gaaraa 6.2 mitir, halka culeyskiisa uu yahay 15 tan. Shirka hore ee gaarigan ayaana ah mid u diyaarsan wax walbo, waxa uuna ka mid yahay gawaarida gaashaaman ee heerka 2, wuxuuna wataa matoor siinaya awood gaaraysa 306 faras, ayadoona uu gaara xawaarihiisa ugu sareeya 110 kilomitir saacaddii. Shirkwan RCV, shirkadda Kraz, waa gaari loo isticmaalo in lagu sugo nabadgelyada goobaha aan aaminka ahayn, waxaana lagu sameeyay gaarigan dalka Ukraine. Wuxuuna wataa gacan wiish ah oo u shaqeysa nidaamka hydrauliga ah, taasoo loo dhigi karo hoos si loogu bixiyo miinooyinka lagu aasay dhulka. Waana mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ee miinooyinka xaqa ee loo isticmaalo howlaha nabad sugidda. Dhererka gaarigan wuxuu gaaraa 8 mitir, halka culeyskiisa uu yahay 17 tan. Wuxuuna wataa matoor siinaya awood gaaraysa 336 faras, halka xawaarihiisa ugu sareeya uu gaarayo 80 kilomitir saacaddii. Waxa uuna ka mid yahay gawaarida gaashaaman ee heerka 2, waana mid ay adeegsadaan gaarigan gaashaaman ciidamada qalabka sida ee dalka Ukraine. Supercat LWR SC Group, waa gaari fudud oo si aamin ah loogu soo saaro gawaarida kale ee aadka u culus, kuwaas oo howlgabay. Waxaana lagu sameeyay gaarigan dalka Ingiriiska, wuxuuna mari karaa waddooyin aan hagaagsaneyn. Dhererka gaarigan wuxuu gaaraa 7.3 mitir, halka culeyskiisa uu yahay 10 tan. Gaarigan gaashaaman ayaana socon kara masaafo gaaraysa 700 oo kilomitir, ayadoo aanan lagu shubin wax shidaal oo dheeraad ah. Wuxuuna wataa matoor siinaya awood gaaraysa 185 faras, halka xawaarihiisa ugu sareeya uu gaarayo 120 kilomitir saacaddii. Waana mid ay u suurtagal tahay gaarigan inuu qaado culeys gaaraya 6 tan. Waxa uuna ka mid yahay gawaarida gaashaaman ee heerka 2. MRV2, shirkadda Navistar Defense, waa gaari lagu sameeyay dalka Mareykanka, kaasi oo loo isticmaalo ku soo saaridda gawaarida kale ee aadka u culus, kuwaas oo ciladoobay. Wuxuuna awoodaa gaarigan maridda waddooyinka bacaadka iyo kuwa dhoobada ah. Dhererkiisa waxa uu gaaraa 11 mitir, halka culeyskiisa uu yahay 32 tan. Waana gawaarida gaashaaman ee heerka 4. Wuxuuna wataa gaarigan MRV2 matoor siinaya awood gaaraysa 456 faras, waxaana u suurtagal ah inuu qaado culeys dhan 27 tan, ayadoona xilligan loo isticmaalo gaarigan in si aamin ah loogu soo saaro gawaarida kale ee gaashaaman ee aadka u culus. GBKF, shirkadda Liebherr, gaarigan wuxuu wataa wiish gaashaaman, kaasi oo loo isticmaalo ujeedooyin badbaado, waxaana lagu sameeyay dalka Switzerland. Waana mid u suuragal ah inuu isaga kala gudbo si fudud noocyada kala duwan ee waddooyinka, waxaana loo adeegsadaa gaarigan GBKF in lagu soo saaro gawaarida kale ee halowday iyo ku qaadidda waxyaalaha aadka u culus. Dhererka gaarigan wuxuu gaaraa 13 mitir, wuxuuna wataa gaarigan GBKF matoor siinaya awood gaaraysa 456 faras, asigoona qaadi kara culeys gaaraya 20 tan, halka xawaarihiisa ugu sareeya uu gaarayo
85 kilomitir saacadii. Waxa uuna ka mid yahay gawaarida gaashaaman ee heerka koowaad, asigoona wata qalab sahmin ah oo uu joogiisu yahay 35 mitir. ARM shirkadda FFG waxaa loo adeegsadaa gaarigan in lagu soo saaro gawaarida kale ee howlgabay, waxaana lagu sameeyay dalka Jarmalka. wuxuuna wataa gacan loo isticmaalo in lagu soo saaro si aamin ah gawaarida kale ee aadka u culus oo dhirirkeedu uu gaarayo 5 mitir. waxaana u suurtagal ah inuu qaado gaarigan gaashaaman ee ARM culeys dhan 20 tan. waxa uuna ka mid yahay heerka saddexaad ee gawaarida gaashaaman. dhirirkiisana wuxuu gaaraa 8 mitir, halka culeyskiisa uu yahay 38 tan. wuxuuna wataa gaarigan matoor siinaya awood gaaraysa 700 oo lixaad faras, ayadoona xawaarihiisa ugu sareeya uu gaarayo 100 kilomitir saacadii. Ajax Bridging shirkadda General Dynamics waa mid ka mid ah noocyada gawaarida asalka ee shirkadda Ajax, waxaana lagu sameeyay dalka Ingiriiska. afka hore ee gaarigan ayaana wata qayb fidsan oo kala baxda, wuxuuna gaaraa dhirirka gaarigan 76 mitir, halka culeyskiisa uu yahay 38 tan. waxa uuna ka mid yahay heerka saddexaad ee gawaarida gaashaaman. qaybta hore ee kala baxda ee gaariga waa suurtagal in lagu dhigo laguna laabo 2 daqiiqo gudahood, waana mid u dulqaadan kara gaariga Ajax Bridging qaadida gawaarida kale ee gaashaaman, kuwaasoo xitaa uu gaaraya culeyskood 50 tan. wuxuuna wataa matoor siinaya awood gaaraysa 800 oo lixaad faras, halka xawaarihiisa ugu sareeya ee gaarigan uu gaarayo 70 kilomitir saacadii. Kodiak shirkadda Rheinmetall Defence waa gaari taangi ciidan ah oo lagu sameeyay dalka Jarmalka, wuxuuna taangigan afka hore uu ku wataa majarafad wax lagu qodo, taasi oo sidoo kale ay suurtagal tahay in loo isticmaalo ujeedooyin kala duwan. dhirirka taangigan wuxuu gaaraa 10 mitir, halka culeyskiisa uu yahay 62 tan. wuxuuna wataa matoor siinaya awood gaaraysa 1500 oo lixaad faras, halka xawaarihiisa ugu sareeya uu gaarayo 68 kilomitir saacadii. waxa uuna ka mid yahay heerka saddexaad ee baabuurta taangiyada ee gaashaaman. haddana waxaa adeegsado taangigan dalalka sida Sweden iyo Singapore. Bars 3 8x8 shirkadda FNSS waa gaari gaashaaman oo loo isticmaalo ujeedooyin kala duwan, kaasi oo lagu sameeyay dalka Turkiga. waxaana dhowr mar lagu kordhiyay gaarigan qaybo badan sida wiishka nidaamka hydraulic ku shaqeeya. dhirirkiisa wuxuu gaaraa gaarigan 8 mitir, halka culeyskiisa uu yahay 24 tan. waxa uuna ka mid yahay heerka afraad ee gawaarida gaashaaman, wuxuuna wataa gaarigan matoor siinaya awood gaaraysa 600 oo lixaad faras, xawaarihiisa ugu sareeya ayaana gaaraya 100 kilomitir saacadii. ayadoona gaarigan Bars 3 8x8 ay suurtagal tahay in loo isticmaalo ku qodida godadka, ama in lagu furo wadooyinka, ama xitaa in loo adeegsado ku xaaqida goobaha lagu aasay miinooyinka. ugu dambeyntii daawade, dhammaan gawaarida gaashaaman ee aad ku aragtay muuqaalka, haddaba waa kee gaariga gaashaaman ee ugu cajiibsanaa ee aad ka heshay adi ahaanta? noogu reeb fikirkaada qaybta hoose. fadlan haddaad ka heshay muuqaalka taabo like, hana hilmaamin inaad kanaalka caalam rukumato ama subscribe saarto si aad ula socotid muuqaaladeena soo socda. halkaas ayuu noogu egyahay muuqaalkeena. la kulan dambe oo xiiso leh.